بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology ee ku baxla qodobka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil, emailka sida caadada ah info@sologroups.com. Security and testing waa qaybo aad u xiiso badan oo kamid ah casharada laga barto sologroups.com. waa security iyo tijaabooyin aan ku sameyno noocyada kala duwan ee security-ga ee ICT ama information communication technology. waa a super fishing anything. marka fisha waa maxay? wax yar ayaa laga bedelay, waa kalluunka sida loo kalluumaysto, laakiin waxaa laga wadaa qaabka linkiyada website-yada aan jirin dadka loogu diro kadibna looga xado username and password. bangiyada ayaa looga xadaa, waxaa looga xadaa shirkadaha waaweyn username password sida Facebook, Gmail, Yahoo, Hotmail. waxaad maqashaa mar walba in qofku yiraahdo waxaa laga bedeshay passwordkii Facebook ama Hotmailka. marka waxaad isweydiisaa sidee laga bedeshay. marka qaabkan waxaa la isticmaalaa ilaa iyo dhowr iyo 20 sano ayay socotay. waqtiyadana aad ayay u kordheen. fishkan ayaa la isticmaalaa kaasoo shakhsiga wuxuu ahaadaba loo diro linki aan jirin, saa awgeeda laga helo username iyo passwordkii laga helo. saa awgeeda ayaa waxaa loo isticmaalaa qaab ay isticmaalaan dadka hackerska ay isticmaalaan. marka caaw waxaan ku baranaynaa noocyo kala duwan ayaan baranaynaa. nooc ugu horeeya wuxuu noqonayaa waxaan soo iibinay ugu horeyn shabakad la yiraahdo facebook.co.uk BUOK.co.uk. $3 ayaan ka soo bixinay, laakiin ardayda wax ka barata sologroups.com waxay u baahan kaliya inay helaan shabakad bixisa Linux PHP free hosting. saa awgeed ay ku samayn karaan tijaabo. casharkana waa tabcan educational purposes. haddii si qalad u isticmaashid laga daba yimaado adiga ayaa ka mas-uula. marka waxa ugu horeeya anigana waxay tahay shabakadii aan iibinay waxaanu ku shubnay WordPress ayaan ku shubnay. shabakada waxaa la yiraahdaa facebook.co.uk. sababtaan u sameynaa waxay tahay kan in aan qofka loo diro uusan ogaan qaabka uu yahay iyo ardayga siduu isticmaalaan. waxaan sameynaa wax la yiraahdo diversion. sababtoo ah maskaxda bani aadamka sida u shaqeyso ayaa loo raacaya xilliga la sameynayo diversionka. marka waxaan leeyahay ugu horeyn admin ayaan ku gelayaa. admin iyo passwordkeeni caadiga ahaa abc123 oo aan ku sameyno tijaabooyinka. enter ayaan leeyahay. waxba kuma jiraan. marka kan waan xirayaa. waa completely empty. post waxba ma yaalaan. marka waxaanu doonaynaa kaliya in aanu ku darno post in ku darno, laakiin intaanu ku darin waxaan eegaynaa ayaamahan dambe waxaa soo batay shabakooyin aad u fara badan oo Soomaali ah. waxaa laga yaabaa inaad ku aragtaan Facebooka iyadoo linkya lagu soo diro. linkyadaas intooda badan waxaa loogu talagalay in Google Ads lacag looga helo. kuwa kalena qaarkoodna waxay wataan in link phishing ah lagu hoos qariyo password iyo username laga xado. marka waa muhiim inaad iska ilaalisaan. marka casharku wuxuu noqonayaa qaabka barashada iyo qaabka looga hortago noqonaya. marka ugu horeyn waxaan idin soo saarayaa qoraal saana. qoraalada soo batay ee lagu arko Facebook waxaa ka mid ah runtii wax aad loola yaabay ayaamahan dambe. cid walba ayaa waxay furatay shabakad, markaas qoraal waxay kusoo qorayaan aan weli la maqlin. qoraalkan hadda waxaan ka soo koobi gareeyay website Soomaalidu ay leedahay. luqadda aad ayay u xun tahay. marka wuxuu leeyahay subxaanallah ayuu yiri. daawo ayuu ku xijiyey gabar Soomaaliyeed oo arin laga caroodo la samaysay nin cadaan ah. marka runtii waxay noqonaysaa wax yaab leh. waa qof leh waxaa daawataas ereygu wuxuu ku bilaabay subxaanallah ayuu ku bilaabay. wuxuu iska dhigayaa in defense ku jiro. wuxuu leeyahay wax xun baa dhacay. marka subxaanallah isla markiina wuxuu leeyahay daawo ayuu leeyahay wax la sameeyay. marka wuxuu leeyahay waxa baryahan dambe soo badanayay gabdhaha. waa qoraalkan sidoo u soo qoray copy aan ku soo sameeyay. marka capital letterka esta iyo small letterka wajada shaqalka gaaban shaqalka dheer ee isa soo dhigaya falalka anshaxumada ah kuwaasoo si toos u soo dhigaya filmaan sex iyagoo wax xishood ah inaba sameynin. gabdhahan ayaa ah kuwa ku dhashay ama ku aqliyeystay. waa af Soomaaliga soo qoray qofkan qurbaha iyagoo qaatay dhaqanka xun ee laga naxo. kadibna waxay sameynayaan hoostan ay waxay soo dhigayaan
sawir ayay soo dhigayaan gabar laga soo xaday ama facebooka looga soo xaday ayay soo dhigayaan markaas dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan eegin waxa socda sawirkan wuxuu lay ka gaarsiiyey wuu riixaya isla markii waxaa dhacaya usernamekii passwordkaagii waa lagaa xadaya inta badan markaan ku arko facebook waxaan idhahdaa haddii aad riixdid facebookkaaga waa lagaa xadaya marka maxay sameeyaan qoraalka haddii copy lagu soo sameeyo kan oo shaksiga uu sameeyo article uu ku sameeyo inta badan waxay isticmaalaan tabcan wordpress ay isticmaalaan halkan aysan usoo dhigayaan kadibna halkan ay waxay soo dhigayaan articleka caadiga ayay soo dhigayaan halkan qaabkan ayaa pashinka loogu sameeya inta badan hadda Soomaaliya dadka waxa looga xadaa waa qaabkan oo kale kadibna halkan ayay soo dhigayaan markay soo dhigaan qoraalada ay sameeyaan waxay sameynayaan sawirkii tabcan anaga gabar Soomaaliya sawirkeeda isticmaal waxaan soo helnay model waxaan soo helnay Ethiopian ah ayaan soo helnay ujeedaan am Ethiopia ay leedahay midkan ay halkan soo dhigayaan halkan ay soo dhigayaan markay soo dhigaan link ayaa lagu sameynaya halkan linkigaasoo highlight markay ka dhigaan halkan ayay tegayaan qoraalkii URL-kii ay doonayeen in aad soo gashid oo lagaga xado ayaa halkan la soo gelinayaa saas ayaa lagaga xadaya mararka qaarkood xataa waxay sameeyaan waxay ku soo daraan inkastoo inta badan uu genuine u yahay waxay ku soo daraan like-as ayay ku soo daraan marka waxa xusuus mudan inta badan like-as waa sax laakiin mararka qaarkood waxay ku soo dhex qareen marka waxa laga doonaya kaliya dushiisa ayaa la tegayaa dushiisa ayaa laga eegayaa marka si aan lagu qaldin dushiisa ayaa tegaysa waad eegaysaa marka haddii aan idhaahdo tusaale ahaan kan isagoo ku jira ayaa waxaan kusii darayaa gabadhiina kusii darayaa halkan ayuusaan u yaalla marka waxaan leeyahay publish ayaan leeyahay markaan idhaahdo waxaan hore ka aadayaa shabakadii ayaan aadayaa waxaan leeyahay waxaan doonayaa inaan galo shabakada la yidhaahdo Facebook ayaan ku sameynay markii si aan u furo halkan ayuusaan u yaalla marka shaksiga dhalinyarada ah ama dadka qaarkood waxay eegayaan qoraalkan sidaan ah gabar Soomaali oo nin cadaan wax la sameynaysa marka wuxuu leeyahay gabadhii ayaa indhiisa ku dhacaysa markaas wuxuu leeyahay gabadhii balan eego wuu riixaya marka waxaa lagaa doonayaa dusha markaasaan u riixdid in at the same time aad eegtid linkiga meeshuu aaday waa inaad eegtaa eeg hadda hoosan eeg indhaha ku qabo hoosan dambe waa genuine Facebook dadku laakiin haddii aad aragtid wax ka duwan meel kale uu tegay sababtoo hadda waxaan u jeedaa ethiopian.jpg kaasoo ah sawir saxa kanna haddii aan tago like-as waa saxsan yahay laakiin haddii uu meel kale u aado waxaa kugu dhacaya ayaan hadda si fiican u baran doonaa marka waxaan sameynaynaa minimize ayaan leeyahay kana minimize ayaan leeyahay kana minimize ayaan leeyahay kana minimize ayaan leeyahay marka waxaa desktopka noo yaala softwarekii aan doonayn inaan isticmaalno kaasoo ah super fisher halkan ayuu yaallaa laba jeer ayaan riixayaa dabcan waxaa ku jira akhri muhiim oo mar walba la doonaya inaad eegtid iyo super fisher oo aad download kaga samayn kartaan shabakada solgroups.com right click ayaad leedahay run as administrator markuu sidaan u soo baxo waa very simple URL-ka aad doonaysid in login lagu sameeyo waxaan leeyahay simply http://www.facebook.com/ ayaan leeyahay login oo lagu sameeyey php san lagu sameeyey kadibna saan u isticmaalo copy ayaan leeyahay waan soo qaadanayaa URL-ka login page-ka kana waxaan ka dhigayaa password.text oo ah passwordkii la soo xaday ayuu ii soo dirayaa name-ka magaca php waxaan ku dhaafaya kan ayaan ku dhaafayaa redirection halku aadaya waa inuu aadaa kan originalka waa inuu aadaa marka qaabka ardayga ama qofka kale uu soo gelaya ayaan hadda eegaynaa marka waxa ugu horeeya aan sameyn waxay tahay build a fish ayaan leeyahay wii dhisaya waxaa muhiim ah inaad aragtid meeshuu aadayo mararka qaarkood waxaa laga yaabaa meel kale inuu aado marka indhaha ku qabo haddii kale heli maysid waxaa laga yaabaa inuu temporary file u galo temporary file hadduu galana waxaa sameynaysaa waa taqaanaan waxaad tegaysaan organize folder search view show hidden files haddii kala arki maysid laakiin hadda waxaanu nasiib ku leenahay wuxuu joogaa wuxuu noo tagay outputka halkana marka kani waa noo dhammaatay waan xirayaa outputka ayaan tegayaa waxaa ku jira index.html hypertext markup language iyo script login kaasoo ah script
PHP marka waxaan furayaa HTML kit ayaan furayaa waxaan doonayaa in manipulation aan sameyn aan wax bedelno open file ayaan leeyahay desktop ayaan tegayaa output key si aan u xaqiijiyo halkan ayaan tegayaa output key waa kan waxaan furayaa indexka ayaan saan u furayaa marka indexka indhaha si fiican u qab halkan waxa yaala qoraaladu isku yar dhacsan yihiin marka la dooni maayo waxa la doonayaa qofka in indha sarcad lagu sameeyo mujida halkan inay isu qaldan yihiin marka waa inaan bedelnaa waxaad ku bedelaysaa isla qoraalkaas waxaad leedahay you're using a web browser that isn't supported by Facebook aan la shaqayn waxaan tegayaa kan ayaan xirayaa waxaan ka bilaabayaa halkan ayaan ka bilaabayaa waxaan tegayaa ilaa iyo halkan ayaan tegayaa control iyo V ayaan leeyahay haddii aan ku laabto it looks professional marka sababta loo sameeyay waan eegin halkan hoos ayaan usoo degayaa waxaan eegayaa Facebook kana waxaan doonayaa inaan bedelo sababtoo ah ma doonayo qofku inuu yiraahdo Facebook maxaa ka qaldan inuu yiraahdo editorka ayaan ku laabanayaa control F ayaan leeyahay halkan ayaan gelinayaa all red ayaan leeyahay find text ayaan leeyahay wuxuu ka raadinayaa meel walba ayuu ka raadinayaa find all ayaan leeyahay marka wuxuu fadhiisanayaa meelahan hoose ayuu fadhiisanayaa marka kaasi waa in aad bedeshaa si isticmaalaha uusan u garan waxa socda inuusan u garan marka meelahan waad ka heshaa haddii aadan helin waa lagu laabtaa waxaa laga bedelaa keliya qoraalkan sidan ah ayaa laga saaraa sensitive ayaa laga dhigaa si uu helo hadduu waayo waa laga sii saaraa kan waayo inta badan ma jecla qoraalada noocan ah ilaa uu ka taga meesha ugu dambaysa fine ayaad leedahay waa kaas waa ujeedaa wuu helay markaad ka saaraysaa iminka wuxuu ekaanayaa ay professional ayuu ekaanayaa hoos ayaan usoo degayaa aad ujeedaa refresh ayaan ka dhigayaa mid kale ayaa ku jira marka haddii kan hore aad samaysid mid kale ayaa ku jira waad raadinaysaa you have to find 2014 oo kale F ayaa leedahay mar walba 2014 ama waxaa leedahay find all ayaa leedahay gebigood soo wada ayaa leedahay waad soo wada helaysaa markaad dhamaysid waxaa leedahay file save ayaa leedahay waad keydisay marka sababta loo sameeyey kan wuxuu yahay aan ogaanina hadda annagu waxaan haysanaa shabakad runtii u eg Facebook u eg ayaanu haysanaa laakiin isticmaalaha kale kani HTML-ka waa local waxba ka welwelin wax qalad kuma jiraan isticmaalaha kale waxa loogu talagalay indhihiis inay ku dhacaan halkan colors ayaa yaala Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome wuxuu leeyahay update your browser waa inaad samaysaa marka eegi maayo linkiga pishinka haba yaraatee eegi maayo indhihiisa halkan ku dhacaya what's going on ayuu leeyahay update ayuu leeyahay marka update-ka haddii aad raxdid update ayuu samaynayaa ama wuxuu aadayaa Facebook-ga caadiga ayuu aadayaa marka intuusan samayn ama uu sameeyo halkan ayuu tegayaa wuu ku qorayaa kadib passwordka ayaa laga xadayaa marka sidee looga xadaa passwordka kii aan save garaynay haddii aan idhaahdo minimize aan idhaahdo halkan ayuu ku jira index iyo login kan waa temporary iska ilow waxaa noo furan halkan yaallaa FTP waxaad ku aragtaa facebook.co.uk iyo username-ka iyo passwordka marka waxaan leeyahay refresh ayaan leeyahay markaan idhaahdo halkana refresh ayaan leeyahay waxaan furayaa public HTML waxaad ujeedaa halaan ayaa ku jira marka password waxa la yidhahdaa halba yaraatee kuma jira indhaha si fiican ugu qabo password kuma jiro superficialka ayaan furayaa output-ka ayaan furayaa waxaan leeyahay control ayaan qabanaya labadan kale ayaan u baahanahay index.html iyo login.php right click ayaan leeyahay upload ayaan leeyahay marka maxaa dhacaya waxaan aadayaa shabakadeeni ayaan aadayaa marka shabakadeeni saa la socotaan waa facebook.co.uk haddii aan refresh yiraahdo maxaa dhacaya automatically wuxuu aadayaa halkan ayuu aadaya marka isticmaalaha markuu sidaan ugu diro wax walba waxay ogyihiin Facebook caadi ay ogyihiin kan laakiin arki maayo aniga hadda waxaan sameeyay Facebook wax ogaan sameeyay lagama yaabo inuu eego qofka isticmaalaya Facebook laakiin ardayga waxaan u sameynay kan waa in uu attention-ka ama indha sarcaad lagu sameeyaa uu indhihiisa ayaa ku dhacaya sababtoo ah halkan ma aadayo halkan ayuu aaday wuxuu leeyahay wow what's this update your browser
وين سمية مركز سولية هاي أبدأ ديو سمينيا أنتو سمينين مركز highlight كيس بالإك وgenuine وأوريجينال كروم كيكو حريم ميد موزيلا هوست إك هوستن هالكن يرى إك موزيلا فايرفوكس إنترنت إكسبلورر يو جوجل كروم هالكن يكو حريم كدي وحو سمينيا وحو ليه هاي أوكي let me go to my Facebook info@sologroups.com Facebook جينا مركز باسورد يانو سمينيا وحن ليه هاي إلياس كابيتال لتر يانكو باللابي 1 2 3 4 5 6 X oo capital letter ayaan ka dhigay marka waxa dhacay eeg iminka login ayaan leeyahay tabcan isla markii aan ku sameeyo login kaas wuxuu igeynayaa facebooka originalka ah ee jira kaasoo ah https://facebook.com oo caadiga ah ayuu geynaya marka inta badan waxa dhacda in mararka qaarkood passwordkaaga uu qaldamo marka waxba ka fikri mayso waxa leedahay why uusan u gelin mar labada ay ku noqonaysaa marka kii aan doonina markii waa kan ujeedaa kan originalka mar labada ay ku laabanaysaa marka haddii aad ku laabatid hore ayuu ka gelayaa marka anaga maxaa noo samaysmay wixii aan doonina way noo samaysmeen haddii aan tago ftp-ga passwordkayga halkan kuma jiro wuxuu u baahan yahay keliya right click refresh isla markii waxaan ku aragnaa password.txt right click ayaan leeyahay download ayaan leeyahay waxaan leeyahay minimize superficial ayaan tegayaa output ayaan tegayaa passwordkii waa kan maxaad aragtaa info@sologroups.com passwordkii Ilyas 1 2 3 4 5 6 7 halkan ayuu soo galay marka si aan u xaqiijino waxaanu sameynaynaa password ayaanu sameynaynaa waxaan leeyahay elo aan isku xijinayaa elo university Boorama oo dhammaan capital letter ah oo jaamacad aan aad u jeclahay oo si aad u wanaagsan lagu soo dhaway markii aan Boorama tagay copy ayaan leeyahay kan waan ka saarayaa do not save ayaan leeyahay kana waan delete garaynayaa ftp-gana waan tegayaa halkan ayaan ku dhaafayaa kan sidiisa iska ahaado kadib waxaan tegayaa waxaan furayaa shabakad ayaan furayaa waxaan leeyahay Facebook san ayaan u furayaa u soo baxay info@solo elo university aan soo koobi gareeyay login ayaan leeyahay waa ka booday kii caadiga ayuu tegay ftp-ga ayaan tegayaa right click refresh ayaan leeyahay right click ayaan leeyahay waxaan ku sameynayaa download ayaan ku sameynayaa waxaan tegayaa superficial ayaan tegayaa output ayaan tegayaa password ayaan tegayaa maxaad ku aragtaa halkan elo university Boorame info@sologroups.com marka muxuu sameynayaa isticmaalaha marka halkan ayuu tegayaa halkan ayuu highlight ku leeyahay linkiga ayuu tegayaa halkan ayuu ku gelinayaa marka wixii aad doontid halkan ayuu ku gelinayaa kadib waxaad eegaysaa kaliya inantan ayaad arkaysaa inantu baad riixaysaa ama like-as wuxuu ahaado hore ayaa lagaga xadaya marka waxaa muhiim ah like-as ma ahan runtii waxa lagaga baahan yahay kaliya wuxuu noqonayaa mar walba san aad u riixdid waa in aad eegtaa linkiga hoose waa inaad eegtaa marka san aad u riixaysid waa inaad eegtaa mar walba linkiga hoose oo aad gelisid waa inaad eegtaa marka qaabkaas ayaa loo xadaa linkiga laisugu sameeyaa kadibna waa lagaa bedelinayaa information wax walba halka aad gelisid sidaas ayaa lagaa qaadaya marka qaabkan ayuu noqonayaa waxaana filayaa casharkan xiisaha leh ee security and testing oo aan ku barnay qaabka loo isticmaalo isla markaa loo sameeyo superficial loo sameeyo phishing anything wax walba marka waxaa loo isticmaali karaa Google waxaa loo isticmaali karaa Firefox waxaa loo isticmaali karaa Google Gmail waxaa loo isticmaali karaa Yahoo Hotmail waa loo isticmaali karaa marka casharo kalena tabcan waa laga samayn karaa isagoo full version waxa download kaga samayn kartaan sologroups.com marka haddii aad u baahan tihiin inaad samaysaan uma baahnid inaad domain soo iibisaan domainka waxaan ku iibinay $3 aan hore idinku sheegay looma baahna waxaa loo baahan yahay keliya inaad heshaan a Linux a PHP a free hosting waxaad samaysaa cPanel control panel oo cashar hore aan kusoo baranay waxaad samaynaysaa FTP waxaad samaynaysaa link kadibna waxaad soo saaraysaa kanoo kale ayaad soo saaraysaa qaabkan u eg eesaan soo saaraysaa
ujeeda kanna sawirda kuu sheegay waa diversion ayuu noqonaya kan waa diversion loogu talagalay waxyaalaha ka bedelaysaa haddii aad danti wax kale ayaad ku daraysaa lagama yaabo inuu eego kan maba laga yaabo inuu eego laakiin kuwiina xataa haddii magac kale uu ku qoran yahay ma eegayo sababtoo ah kan ayaa inaha ka qaadaya marka wixii macluumaad ah info@sologroups.com anigoo ah macalin cabdinaasir intaan wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu